terrorista sideen iyo tobanka gaar halka jooga qabiilka iyaga u yaqaanaan nactooyo ay qabiilka iyaga u qabaan oo dhulbaanta u qabaan maanta dunida annaga ka badidha annaga ka luqal sideen iyo tobanka gaar niman afar luqadood ku hadlin male terrorist maanta noqon ma idinka ah reer isaaq waxaan leeyahay garxajis qabiilka la yiraahdo gobonimaad sheegateen hubka idinka la idin urursado wakiil idinku leyn lahaa nasiibka un baa annaga dhakadayada waxeeyay war bal waxa dambe naga kala dhima rag reerkiina kamida baa hubka soo guraya idinka intaas aad leeyahay qabaa'ilka kale waxaan leeyahay habar shaclooy tolbaynu nahay allah ina wada abuuray talada haddar wadan ma wacna salaadiintu talada ay wadaan ee hal midayo talada isaaq ee hal midayo qaranka loo midayo qaranka midayntiisa ma dhulmaanta la laayaa ma in maatada la laayaa qaranka midnimadiisa waxaan joognaa goobtii magaca dheerayd taariikhda gobolka Sool iyo taariikhda ummadda Soomaaliyeed ba ku lahayd magaca dheer oo goobtii shuhadada ee lagu xasuuqay dadka dhalinyarada ah ee birmageyda ah ee ku xasuuqay maamulka Inabiixi saaka aroortii waxa magaalada lagu soo qaaday weerar dhowr jooga ka bilaabmay iyo madaafiic hadeer waa taasoo waa dhacasa ilaa yoomana hada waa dhacasa loo miidaan daymayo madaafiicda laynta dadkana loo miidaan daymayo mujtamacna waxa loo sheegayaa war beena ergada la wadaa waa been oo ergo dadkeedii ciidankii iyadoo ay lahayd dadka laynayo oo madaafiicda garaacayo waxay u timi waa un ciidanka inay u gurmato madaxweynaha maalin walba dadkaygan la hadlayaa iyo dadkaygan u tulayaa waa ka wuxuu ururinayay 7 casho wuxuu 7 casho ee u dambeeyay wuxuu ururinayay waxay noqotay inuu soo weeraro dadkii maatada ahaa sidiiba dhaqaatiirtii loo garaacayaa sidiiba masaajidii loo garaacayaa sidiiba maatadii loo garaacayaa ummadda muslimiinta ah dunida dadka islaamka dhammaan waxa loo wada sheegayaa oo aan hadeer u cadaynana dagaalku inuu joogto yahay maalin walba uu isagu bilaabo madaafiicda BM-ka 105 daasodonka midna aan loo miidaandiin dunida intaasaan u sheeganaa dhulbaantana waxaan u sheeganaa oo dhulbaantow dhimasho hore aad u taqaaneen ninka dabcigiisa wuxuu dawladdii Soomaaliyeed kaga cararay nacayb qabiilo dawladdii Soomaaliyeed Muuse ee wax soo bartay ee isaga ina kaahin barbaarisay nacayb qabiilo kaga cararay haddana wuxuu idinayay waa nacayb qabiilo idinka intaasaan leeyahay taladiinni meel bay taallaa garaadadaasaa dhigay gudidaasaa yaalla wixii ka soo baxay taas baa la raacaya dhimasho dan ha ka gelinina waad ogeydeen dawladdii Ingiriiska 22 sano la dagaalamayseen 22 sano baad la dagaalamayseen dad iyo dunyo ceelasha la idinku sumeeyay oo diyaaradaha la idinla dhacay aan Afrika la dhicinin nin baan maqlay maan dhaw tala dhulbaanta waligii ma dagaalamin oo hada dhulbaanta dagaalamiya dagaalama geeska Afrika wax dagaalama dhulbaanta baa jira diyaaradaha la dhacay cid kale wax la dhacay ma jirto waxba adiga ka oran maayo qabiilkaagana wax oran maayo adigana wax oran maayo dagaalka ciidanka halka jooga hubka ay wataan waa qoriyo saddexdii qori mid baa dhaca laba qori baa saa loo dhigay ka dhaca la dhexgeliya ayaa loo biqin hubkaas waa cidla hubkaas ka noqon naga tag iyo waa naga tagayaa aqli uu ku tago iyo gobonimo uu ku tago midna ma laha idinka taasaan idin leeyahay reer isaaq waxaan leeyahay garxajis qabiilka la yiraahdo gobonimaad sheegateen hubka idinka la idin urursado wakiil idinku leyn lahaa nasiibka un baa annaga dhakadayada waxeeyay war bal waxa dambe naga kala dhima rag reerkiina kamida baa hubka soo guraya idinka intaas aad leeyahay qabaa'ilka kale waxaan leeyahay habar shaclooy tolbaynu nahay allah ina wada abuuray talada haddar wadan ma wacna salaadiintu talada ay wadaan ee hal midayo talada isaaq ee hal midayo qaranka loo midayo qaranka midayntiisa ma dhulmaanta la laayaa ma in maatada la laayaa qaranka midnimadiisa waxaan leeyahay maxamuud guulaadow ina xaji xuseenow ina cabdi cawadow gobonimo innakayna ku ururaysaa war ka daaya allah iskeen baday ma sideena allah iskeen baday taladiinnu hadday tahay dhulmaanta ku jabiya gacanta muuse bixise war dhulmaanta jabi maayo mana jabo dhulmaanta waa dhal shuhada wallahi 10 hadduu helo 10 hadday helaan 200 oo ku daqiiqad ku noqonaya ka daaya habar jeclo inta idinka ka badan idin ori maayo beesha caalamka waxaan leeyahay maamulka waad aragtaan waxa leeyahay waa terrorist anigu xildhibaanadii 3 mana terrorist ma waxa terrorist
sideed iyo tobanka garaad halkaa jooga qabiilka iyaga u yaqaanaan nactooyo ay qabiilka iyaga u qabaan oo dhulbahante u qabaan waana formula meel u shaqeeyey xilligii daraawiisheed buu formuladaas u shaqeeyey kanu shaqayn maayaan berigaa dunidaba maana noqon maanta dunida annagaa ka badidha annagaa ka luqan sideed iyo tobanka garaad niman 4 luqadood ku hadlin ma leh terrorist maanta noqon ma idinkaa xiriir connection la leh hadday idigu terrorist maxaa siyaasiyiinteena loo leeyahay waayo kuwa iyaga dhulka loogu laaya taasna intaasaan leeyahay waxaan leeyahay la bax ciidankaaga ummadda dunida islaamkana waxaan leeyahay ciidankiisa ah nalaga saaro dowladda federaalka ra'iisul wasaaraha xasan sheekh arrinta waad ka hadasheen laakiin arrintuna waa badbad marna ma idoon ciidanka meesha ka saar arrintiina waa badbad gudoomiyaha baarlamaanka madoobe ra'iisul wasaaraha waxaan leeyahay calanka Soomaaliyeed ummaddaas sidato arrinteeda aan la badbarin haddaan ciidanka laga saarinin meesha garaadaduna xal keeni maayaan dhulbahanta kale xal keeni maayo duniduna xal keeni mayso safiirka Mareykanka dadaal badan buu sameeyey dadaalkaagu noqon maayo in ari cadeeyo la geeyo ari cadeeyo dhulbahanta leh iyagoona dhulbahanta leh laas caanoorda dhulbahanta inta laga qaado dhulbahanta kale la geyn maayo nimankaas dhul bay leeyihiin dhulkooda hal la geeyo waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadka arrintaa taageeraya beesha ama jeerteen gaar baan ugu mahadcelinayaa ummadda Soomaaliyeed gaar baan ugu mahadcelinayaa beesha warsagal gaar baan ugu mahadcelinayaa deelayaa malihiin arrintu wax weeye jidkii ilaahay jidkii kama qoslo Soomaaliduna waxay tiraahdaa ninna intuu ku joogo kuma soo dhaabo beesha amsabe beesha ma jeerteen beelaha Soomaaliyeed dhammaan waan u mahadcelinaynaa isaaqoo iskala ogaanay dhalashada isku kala ogaanay dhaqan isku kala ogaanay kala quusanay qomada aan lahayn